السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان الشعب كالصومال ملك سيتشوغان هبين وعن ومناكسن ولا لها قالقة صوماليات قيمها له ضل يدبد بمحايدين لي هاي انتي هبين وطاي هبين وعن انتي مالو وطاي مالو وناكسن انتي قلب وطاي دمانتي ولا ليال وإيدين سلاني ضل كان بريها وحكا دعاي ومضوغين والله مشغول صناع لكن هلقنك مالها كلان كودني soomaalinimadu qiimaheeda iyo qadarinteeda waxa waaye dee sharafta qofka siduu iska dhigo unbay tahay dowladnimadeenii 12 sano wixii ugu dambeysay dalkeenu wuu soo baraaray Soomaaliya guul baan joognaa iyo sharaf iyo cis iyo karaamo laakiin barihi waxaan ugu soo batay dadkeena in lagu ugaarsado wadamada ay joogaan adduunka caalamka hadda Mareykanka oo kale ilaahay u naxariisto Sheekh Xasan الله يرحم الراحمين وتيميت كيس اللواي إلها قلنا حريستو هذا ويل دلنا يرو كلام مقن كولومبو هايوس دلنا يرى بدنا يضن السدو كله برنامج ذو كودينتو نبكو بدنيا هاي والعكس ورحمة نصر قروح يروي ذا دمان نبكي أدب بدنيا هاي ماشي الربي إنجا يعني الصومالي أهان السيومن أهان ضلكي وكسوق حني وضمش شيء نمت هذانا أساسيم تايم dadkaygii waa lagu ugaarsanaya oo Colombo Ohio wadaad bara la dilay maqan cid laga soo helay evidence loo ma hayo wali qofka dilay cadaynta lama hayo in hadda wiil dhalinyaro maqan de kulay qof dalkiisii ka soo qaxay oo haddana wadankii kale uu iimaanay dhibaato ku qaba oo haddana aynu maanta inaga dhexdeynii aan dalkeeni iyo dadkeeni iyo doorashadii la rabay in la xaliyo oo la dhameeyo oo loo naxo shacabkii ilan dadkay qurbaha joogaan ضلك السلام عليكم أبو اللايف أم كجرا جراد واحد أم كجسوا عليو اللايف أم كجرا هاي أبو هاي إن شاء الله إن مركا إن مصر عنا يساء وحصور قلمية إن ضدك صوماليات أينو النقطة ضد إن every single مركا لو استايب لو طلب صد دورشي إلا تجو إن عجه اللي سجدوا we don't know رجعنا ومالي أسعد ما قرنينه رئيس وزراء دراد يدو حلو دي باليري إن واقعسو جود دورشدي وحي هوشي لو ضفرها لقى صاري دوري توم بلد هذا كسو وريقتي ما حنق عنتو كوينا شرب اللي سوي معنا ولا سكده مراقي مربان بالباص الله صفر ولا بيح خفك شقو وبيحكرا لكن ماي دورشدي لو ديبي ما حان تفراق كان وايد دلك لوgu samri laayahay soo dalkii inaga malihin war wax kasto oo dhaco anaga macdan baynu haysanaa dal qani baynu nahay waynu baraarayna waynu guuleysanayna laakiin maxaa loo samri laayahay waxay isku dulmeeraysigan maxaa hela madaxdeena dadku miyeenan aqli iyo garaad lahayn miyaa indhaha loo furo shacabka Soomaaliyeed ma every single minute waxa u taagnaana midha la soo qabtaa la bedelo rasaare cusub mida taga mid kale la keenaya mida taga abaay farci waa ku salaama macaan in garaad walaalkay qaaliga farxiyo ma sha Allah dadkayga qiimaha la soo gal wadaniinta marka walaalaha halka ku jira dhamaan waa idin salaama miyaan anaga ma aqligaan la anaymis halkay u soconaa Soomaali maxamedi ma waalanahay adduunka caalamka sharciga narsiyo deganaansha narsiyo waynu ka shaqaysanaa laakiin waxa xaq u leenahay wadamadeena wanaagiisa inaan ka shaqayno inaynu xumaha wayna dhibaysaa last saddexda ma ugu dambeysay cidii jeefata ma jirto qof kasto dhagtu u taagay saas oo u dhafreena waa shakhsi la keenay oo mas'uul laga dhigay ayaa habeen u dhafreena oo dalkii maamulkiisa loo dhiibay لله ورنا هجاجية كوا كلا ورقة صوت ورا أنت كسر عرّا وحلين هايو ها إن واقع مدحوينها وحور والله بس إنه كدر صدق وافيل اللي يسلو جيه رسالة هو بحجبوت بوتجي محل جسوا سمي محل دعي كيو تجايانتي وحد دعوة جدا وحصان نقدر سووا كلام مقن جبوتي وكتجي هذا أساسا ماشي نوجب باللعبة ميان أنا ضمت هنا أنا إيجي كريني أنا وحنا نقول مية وحنا وأركع صدق شنو ملف صار أنا نوجين mid kasta dantiisu ka wataa madaxda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha in iyo kuwa maxay ahayday macaaradka iyo inta dhagaha furan oo qarannimada cagaha uga dhagan waxaan leeyahay war dalkaada iskale cid kale ma laha kan adigu bir ku anfacaya noo baari kale ma jirto adun ba ma garanaysaa baaba'aya anagu baa qaxayno anagu baa dhibaatoonayno anagu baa ishaysanayno dadka kale idin ku wareegsanay daraha gaarka idin ka wato tomorrow bye bye ku leeyihiin shaqadood ma aha they doesn't care banac li idin kaga tagayaan waxa baaba'ayo rabo hubka in la isku gurto ma garanaysaa tuuga iyo kuwa banaanka jira iyo ku dal isugu iimaanayo
ee baaba'ayo waa inaga dadkeena qaxayo inaga baaba'ayno inaga hasaagayno inaga doorashada dib nooga dhacaysa inaga noqonayna dad iyaga la xukumo de inaga shaqaysanata gacmaheena ku raadsanay of course because ma doonayno ma cishanayno raggan waxa ahayd in loo istaago oo lala hadlo oo la dhoo ka fadhiista dalka dhibaatada ka daaya bariis wasaaraha dalku waaba loo dhiibay waaba jecelnahay bariis wasaaraheena maxaa asiga loo soo istar garayn ii sheeg kuwa kale maxaa loo shiri war Soomaali qabiil walba waxay noqdeen waxa ku jiro macaarad wax dumiyo Soomaali runta idin sheegaya nin kasta kuwa wax dumiyo qabiilka ay ka heli kuwaga ka helaya kulli kuwa kasta dana gaarbaystaan ma jiro wax dalkii u naxayo war ma liswaalaya 2 years basa u taagnin hal ugu daraali jiray waa habi baan ahayn waxa sidii hal cod hal aado habadii maal weynu dhafrayn weynu baaba'nay iyadoo hadan la shaqeynaa hadan loo dhafray siyaasadii dalka ilaahu marle ilaahu doorasho inuu gaarno ilaahu inuu dhaqaaqno ilaahu rafaadka inuu ka baxno ilaahu mar un le dalkaygu dawladnimadiisa cagaha ku istaagta u taagana ilaahu mar un le hadii madaxweynaha 4 sano kale loogu daro uu soo baxo hal cod baa la gaaraya madax caawa arkay dhahay madaxweynaha waa ugu galayna waa dilayna war hadaa adiga aad waxaas aad ku hadashid you think and ma garanaysaaye in tomorrow in adigoo kale uu soo baxayo uu ku koobiyeynayo maxaa dilaysaa madaxweynaha inta soo boqoro askar oo kuma kuna hor taagan waa madaxweynahaadii waa madaxweynahaada qaran sharaftaada dignigtaadu ilaalinaya ciidankaadu ku dhisaya badroolkaadu qodaya lawyer buu ku yahay come on dadku waxa fi aqliga inuu shaqeeyo Soomaaliyeed dawladnimadu dugsi bay noo tahay dadku miyay waalayeen horto maxaa dadku ka sin noqday war hadaa hartii inaad qaran dubis noqotid banaanka soo istaag video soo duubanay soo istaag ma rabdo dawladnimo aniga qori soo qaado marka soo iska ka celinaya sharci baa lagu dhigaya kii sharciga ku xad gudbo sharci hadda markay arkeen inay ku qaran dubiska warqadaha soo saareen arkeen inay hadlayaan dadku tafraarq markay arkaan tuug baa ka faa'iideysanaya وسو استاغايا halkaas aljazeera meel buu ku jira arkay aljazeera Soomaali wuxuu isna talaagad hadan arkay wuxuu leeyahay ha anaga bixinay in siyaad bar Allah yarxam Allah jannada ku geey in anaga hebel bixin war waxaas laga soo tag dalkan burburi dhibaata ka dhacday qabiyaal cid wax ku taraysa ma jirto war Soomaali way baabaaday war dal idid hadda ha 32 miya oo dhalinyaro ayaa bad ku baabaaday oo ajaanib kula jireen dhalinteena way sii socotaa war aan badroolkeena qodanay macdanta yarta aynu qodanay in dal ka shaqaysanay war maxaa keenay badaha war mituug meel yaa la ka faa'iideysanay umadii war wuxuu raay inuu dalkii qaxo oo la bilaqaysto waxa rabaa intii yar umada xaarxaarteen masaakiinta 12 sano ugu dambeeyay loo dhisay dawladnimadii loo istaagnaa in dadka laga baabiyo dadka raba in la qalbi jabiyo war maxaan leeyahay madaxda ra'iisul ugu horeeyo war umada masaakiinta doorashada lagu dhiibay dalka dhaqaaji ra'iisul wasaare hadii aad aaya ka leedahay qarnimada umada Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada ay kugu weyntahay please ريح أهرؤوت أو مدحوينه إلهي وعلفها للدورتو جالا بقين هذيك حتى مشارح داتا ويلكم وكسودا ويننا because مواد باتي حقا أولا دالك الليدا رقم عارض كاي سو شرحان كوا كلا عصب هاي مادان عد كلا مجرتو لكن يالا بقين يا وحلا قسن يوش شاي دي سو أديك سن إسماعيل عمر قيلا وقصو كي دراد متكا وتكتاسوها بحوكوصو شايقا إن وادوكتي وادوكتها نقود محال وقصو شايقا محال وقصو تبيه in dalka doorasho cagaha looga dhago in ma garanaysaay fawdal la sameeyo in dadku kacaan in la buuqo in saa u sabayno sidii ma garanaysaay bad hir ku soo kaco kale dad dhan baa idin sugaay ummad dhan nation dhan baa u taagan ma dadku habeenay maalin hurdalaaba ku dhacaysa waa may dalkaygu waxaan doonayaa in hore u socono war siyaasiyiin baa tii kutuba ku dhaarateen dalkan sida u dhaama dadka masaakiinta qurbaha joogo raba dalkooda inay u yimaadaan wadaadada baa laga baxaya shuyuuqda masaajidada markay ka baxaan ayaa nabad guriyooda ku tagila meedkiisi laga hela meel oo lalaha iska taga ay diideen shacabkay dhahay no we need to know inaan ogaana harma TV-dan sugeena waataan daawanayna ilaa maantadan la daba taagan yahay hadda wiil kala hadana maqan boqolaalo kala saasay u baxaysaa marka maxaad la rabtaan shacabka Soomaaliyeed intay tagayaan intay aadaan mise saaba anaga marba hotel noo fadhiisanaysaan لليه بري دم ساعد دم ورد يرد الصوماليات يوم الصوماليات يشعب الصوماليات نول بيبهين هرمر آيل بيربان نول ما ماشان كو جبابينا ضل كمان تجني وحن صار هوا قروح بدن وصار نقنا وسيطة وحي نسامينينا عروتي إننا بري جينو أي ضل كو ضحوا قبطان أي دول استاجا وحي أوادو ضوطه أديك روح دونيسان ضل كنا قلب جبسان هل كانوا سعتان مرك
ما وروح دونتين دستا oo dhul ilaahay ballaarba ilaahay nasiye laakiin in yarna suga ilaa dalka doorashada ka dhacayso madaxweynaha soo noqonayo qofkii ilaahay u calfo haduu madaxweyne farmaajo maadan ku sii qanacsanahay anag runtii oo la doorto uu noo soo baxo uu noo dhameystiraya shantii sano uu haayo wuxuu qabtay qofka saarka Soomaaliyeed indhahayga ana tago dal ku soo arkay my own eyes ba indhahayga soo saaray isbedel baaxad leh ciidankii uu dhisay shaqooyin badan baa la abuuray dalkii baa la dhisay hay'adi wakaadihii wasaaradihii waan fahmi karaa dad baa diidan oo dhahay hana maxay u leedahay because ruux walba qofkii wanaagsan buu raacaya Soomaaliyeed aqligu ha shaqeeyo qof walba wuxuu rabaa madaxweyne wanaagsan aan dalka ka iibsanaynin oo wax qabanayo oo dalku u hormarayo haddii xataa madaxweyne kale soo sharxayaan way welcome anaga ma diidanin qof kasta calafkiisu cunaya dowladnimadu waa qoro isku dhiib berita markuu baxo mid kala imaanayo kaasa dhameystirayo wuxuu noo sameeyay annaga noo haraysa cid kale u haraysa ma jirto innaga iskale adiga mid ka dhashid aniga mid kan dhaw kulligeen dhamaanteen future ahaan annaga cunayna caawa bari haduu batrool noo qodo uu saadaba ka tago nagis fooyar uu ilaahay qadruutiisa dhamaato uu ma aragto xilka wareeji calafkiisa ka dhamaado yay u haraysa nimcada soo annaga manihin maanta ciidanka la dhisay dhowr iyo 10 kun ee soo deganaya iskale adaa iskale ciidanka amso baa ka ilbaxaysa erabarkii ka soo deganaya ciidanka Amazon iyo UN-ka close waa la xiray qarannimadaada ay u tahay guul Soomaalidu waxa fi aqliga inuu shaqeeyo birna kuwa xalana ka baxay safaaradooda soo degayaan nabad baa laga shaqeynaya dalkaagi waa ku safe xuduud airport bad iyo bariba guul baa joogtaa qof kasta waxa qabadkiisa wanaagsan waa lagu taageeraa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalku waxbuu u qabtay laakiin waa la shaqeyn laayahay Soomaaliyeed waa la garb istaagi laayahay maadaama siyaasiyiin wanaagsan yihiin ay joogaan aad u qiimo badan oo ma garanaysaa dalkii dadku u shaqeynaayo oo aanu jecelnahay oo ku dhafr habeen imaal u taagan ay joogaan laakiin cagaha lisaga dhagayah waa bad doon sabaynaysa hirka ku imaanaya saabay u sabaynaysaa saa maxaa u garan laana badnoo sheeg maxaa ina waala inaga رئيس وزراء عصب عبارة اللي جوجا متكرر عصب ولا جوجا سام هذا نعجها للوجا دجا بردان كورن إيجان لا دنتود إيجا ومسوم لها أنا ضلكي والله إن بيني دي شيئين أم فاسن ومسوم لها نفس التهان أنا مسوم لها وجه هذين لها إلا أقول كجار لكن I don't know ما جرن كرو إن قفك سكرت دي عقلي وكشر هذو قفك كلا جرن لها I don't care حتى وحنكوش عقلينها no مشار nothing جب هذا سوى جرن كرتها وتاجنا لها دي الناي maxaa keenay keenay in dadkayga dalkayga dad loo soo isticmaalo shacab masaakiin shaqo la dad inta soo sano burburka ku dhex jiray aan xataa qaarkood shaqaynin $2 ay u gambinayso oo dalku dhaqaale badan malaha Soomaali maxameday aysan haysanin waxay cunin raba dalkooda ku dhisay niyada leeyahay tomorrow batrool baan qodanayna waynu guulaysanayna ayaan dalki joogo dad waxay dab ku shitaa haysanaa ayaa dalki joogo ayaguna ciyaar bay noola imaanay anaga ijoog wardadka masaakiinta Soomaaliyeed raba dalkooda iyo dadkooda way ku qanacsan yihiin waxba ay haysan gurigooda ku qanacsan yihiin waxay helaan iska cunaan waxay umada siiyaan cunaan qaarkood banaanka ay tuugsan qaarkood way shaqaystaan nabad haday helaan meel ay xabad ka dhaceen dayra happy waa happy dadku waa ka farxiye la soo aragtay dadku ku jira la soo arkay umadu waxay rabaan wadan nabad hadda caaw meel cidla aan jifteen xabad ka dhaceen alxamdulillah meeshan ka kicisa maaha dibku waxa weeye xabadaha qaraxa dhibaatada dagaal ooga berdhaweyd markii dagaaladii la bilaabay ee loogu talagalay imaaraati ka soo direen wata ujeed dadka masaakiinta ay ku dhamaadeen innocent people baa lagu dilay maanta waxa loo carcararayaa in cagaha laga dhigo doorashada dowladnimadu ay soconin dadku la waalo dadku qalbi jabaan ma shaqaynaysa taas wax aqli gal ma aha dalka kilidii ma lihidiin dadka Soomaaliyeed dalka iska leh shacabka qurbaha jooga dal iyo dibadba dalkooda daawanaya dowladnimadooda wanaagsan horu socodka leh aan cidna kale in qof walba Soomaali isku soo sharx qray u joogan maxaa marka ku wala adigu ma u soo istaagtay musharax noqon no welcome no imo soo dhawow dalka cid ka ma laha laakiin qaska naga daaya habeen iimaal isku dul meeraysigan wasiiraan la magacaabo mid kale inta laga bedela inta kale waxay noqotayba am kind of ma garanaysaa shaqooyin aan loo dirinba ra'iisul wasaaruhu looma dirinta waxa loo diray doorashadii inuu maaragtay reexo in xildhibaanada dhim la soo magacaabo in hore u socono daasi madaxweynaha la doorto in ilaahay qofku u qadarno u soo baxo maadaama aan jecelnahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noo soo baxo madaxweynaha dalka noo dhameystir inta noo dhiman
qarannimadeena in baa ka dhiman lacag ma laha soomaali maxamedey diyaaradihii ma haysano ciidankeeni waynu dhammaystiranaynaa amiso way ka baxaysaa dalku hadduu ka tago waxaa laga yaabaa in mid uu iska yimaado danaysta ah oo ma garanaysa caadi qaata ah uu dalka naga iibiyo ama wax kala saangareeya again uu dhaho oo way joogayaan oh we doing this annagana ma rabna annaga waxaynu rabnaa free dalka annaga iskale in xuduudaheena erboradeena iyo badaheena ciidankeena aynu ilaashano innaga ilaan dalka adaa iskale cid kuga haysata ma jirto samaha isyu laakiin midka doqonka ah oo qarankiisa nacib oo ma garanaysa hore aan u soconin oo baababa ah oo aan kala jeclayn wuxuu rabaa wadamada islaamiyada inuu iska joogo halka iska fadhiyo wadankiisana uu burburiyo no there is not qofka nabad inaa inta ka shaqaysid dalkaa joogtid amnigiisa iyo aad ilaalisid kaagana aad ilaalisid labadaba iskama timaado soomaha shaqadu waa inaa adiga shaqaysaa laftigaa isyu hoolan waxa ufla iska tagaya midka uflahow guriga hooyada baa tagaysa adigoo kale waa ay ka dib u dhaca dalka u horseedaya waxaa laga yaabaa inuu diidan yahay runta la sheegayo marka qofka ibni aadam markuu yahay uu soomaali yahay uu damiir leeyahay uu aqli leeyahay wallahi waxaan aaminsanahay inuu wanaaga ka shaqaynayo waqti walbo la soo jeedo wax la qorayo habeenkii in tallaabo la sameeyo tallaabo cusub la hormaro laakiin waa la haystaa warqadaa soo dhacday doorashadii loo dir lama samaynin wasiir baa la magacaabay mid ma meeshii laga bedelay halkaasaa loo shiray shir baa la isugu wacay intaa laga dhacay waa waqtigii loo dilaya maxay naga qaldan war soomaalinimadu maanta gobol soomaaliya ka mid xabad ku dhacdo dan nooguma jirto waa dadkeena wax baaba'aya waxa dhibaatoonaya waa dadkayga wax qaxay waa dadkaygii soomaali maxamed open your eyes dantiina fiirsada indhihiina kala fura waxaan meelaha ka qaylinaya ma garanaysa ee qarannimada iyo halgankii wadannimada aanba garanayninba ee kusoo indha furtay dhib iyo rafaad iyo ma garanaysa dad waaweyn waa xataa kuma dhalanaya dadka hadda caytamaya waa dad waaweyn hadda ninaa maanta arkaya is not born 30 years ama ma dhalan wuu ka horreeyay dhalinta yararka aan dowladnimada arkin aad baan uga xumay runtii maskaxdooda wax xun lagu shubaayo aad baan uga xumay runtii aad bay u taageeraa dowladnimada iyo qarannimada iyo tiktoodka intaan ku arkay waa arkay dhalinyaro aad u qiimo badan laakiin waxaad arkaysaa dad waaweyn haddana raba dhalintii maskaxda inay ka wasaqeeyaan waxaan maskaxda ugu shubayo baabi'inayo ma garanaysaa dowladnimadii iyo jacaylkii ka titiraayo waa la qaxayaa darbigaa la isugu dagayaa waa la dhacaya waawi goyn qorabaa qaadad waxbaa dilaysa adna waa lagu dilay tuugna wuu soo bixi ciyaal suuqaa soo baxayo midka wax layanaya baa soo baxayo baaba tu baaba baynu noqonaynaa we happy insha Allah ta'ala waynu guuleysanaynaa insha Allah guul wax walba oo wanaagsanaan doonaynaa in hore loo socdo annaga aan ma garanaysaa xilka qaadidka waxa nooga sii daran waqtiga naga dhacay Soomaali Maxamed wax kasta hool baa naga galay meeshii la rabo in hore loo socdo hool haddana hool qalbi jab dadka moorka baa ka jabaayo dowladnimadu waxay ku wanaagsan tahay geedi socodkeeda inay hore u socoto hakad gala iyo warqad inta laga soo qaad inta wax ka dhacay iyo we don't want it inaga guul baynu rabnaa insha Allah ta'ala wax walba hakad galana guul baa ka dambayso dowladnimada sidaa wax walba wanaagsan waa la cakiraya wax walba wanaagsan hoosa loo dhigay because waxa loo ogyahay dalka Soomaaliya in shirkii Djibouti ba waxa la filay wax laga sheego Soomaaliya lagu faaniyo dowladnimada lagu faaniyo ma sha Allah hor socodka lagu faaniyo guul iyo positive things dad badan baa wadaha xanuunay oo yani dhibsanayay laakiin alxamdulillah dadka halka fadhiya xataa wasiir Djiboutiana baa runta ka sheegay madaxda fadhida inaga waxa fadhida madax ka timid Kenya waxa fadhida madaxdeeni waxa fadhida la taliyaal waxa fadhiya agaasimo waxa fadhiya siyaasiyiin hore mid damba reality dalka iyo dadka inuu tallaabsaday iyo wax qabadkiisii 5 sano dawladda madaxweynaha Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay intii la soo qabtay inteedii kale ka sii fiican hadan la qabtay والله runta fiican waxaad u fiican la qabtin tan sano horumar balaaran alxamdulillah waa guul meeshaas marka waxa noocad in dalkii dadku uu guul gaaray laakiin waxa laga rabaa midii inaga dhexdeena oo Soomaali ahaanteena inaan meel isugu imaano oo qof walba oo wanaagsan oo positive oo dalkiisu u istaago aad baan u jeclahay dhalinyarada dalka iyo dadka wiilasha Soomaali rag iyo dumarba u taagan wanaaga aan ka xanuunsanayo ma garanaysaa markastaaba waa dareemi kartaa wallahi 3 days 4 days inta waxaan socsoday maskaxda ay kala dhacsaneed life xataa waqti aan ku soo galaan waaye maraan wax qoro iyo maraan wax raadiyo news insha Allah ta'ala aan waxaan sugeynaa good news
soomaali waxaa leeyahay ha guulaysato gobolada soomaali meel kasii joogaan waxaa leeyahay guul ku waara gacmaha isqabsada ahadhawani tafaraaruq because dadku waxay naga faa'iidaysanaya waa tafaraaruqa waa first time erbarka meeqa sano barbarka wixii ka sokeeyey muna xirnayn diyaaradihii UN-kii ka soo degaya Amazon wala iska soo degay wala iska baxay hadda caadi international airport ay ka baxayaan check-in caadi bay marayaan daas dawladnimo xaqaan u leenahay dalkayga iyo dadkayga in la ilaaliyo in aniga ma dhahin dhibay noo keenay laakiin we need to know imaashadooda iyo bixitaankooda check-in labadaba inay maraan insha Allah tacaala taasna guul bay inoo tahay sharaf bay ku tahay sharaf ay tahay qiimay ku tahay qiimay ii tahay horumar ma sha Allah dawladnimadu adag wax qabad kale dignity kale sharafta leh qarnimada ilaaliso waa taa Soomaali Maxamedi guulaysteedii leh sharaftayda waa ii sharaftayda Soomaaliha guulaysato dal iyo dibadba waxaan leenahay dalku ha guulaysto Soomaaliya ha guulaysato meel kasta joogtaan guul iyo gobonimo insha Allah tacaala 1 iyo 2 waxaan soo qabanaynaa walaashay aan doonayo inay dalka iyo dadka insha Allah qofkii doonayo in farxiyo ku soo qabtaa you get advice hold on waxaan soo qabanaynaa insha Allah tacaala one of halgama oo rabto insha Allah in dalka ay isuga waraa dhalinyaro dalka u dadaala waa arkaysay wiilashii tahriibayaasha ahaa ee doonta ku dhintay Soomaali Maxamedi waa wiilasheena waa dhiigeena gobol kasta ay ka soo jeedaan Turkiga doonta u dhaxaysay iyo Greek ku baaba'een wadaadkii masaajidka lagala baxay shiiqi wad arkayseen hadda xal mid baa la soo dhigaa maqan intaasoo kale warkooda aan ahayn baa maqan saama u baaba'ayna we need dalkeena inaan nabadeysano u shaqayno garab istaagno dawladnimada oo waxaan doonaynaa hor istaagno insha Allah tacaala wixii xun oo dhan oo dawladnimada ka hor imaanay ma doonayna anaga Soomaaliha guulaysato dal iyo dibad meesha joogtaan wanaaga qarnimada maanta ee caasimada iyo gobolada ka socdo adiga anaga dan noo tahay waynu wada guulaysanayna dhamaanteen guuliga gobonaa idin laana insha Allah tacaala guulaysta dalka loo istaago Soomaaliya inaan mar dambe wax la bedelo wax ma doonay waxaynu doonaynaa guush iyo dalka inay raagto horaan u socono insha Allah madaxweynaheena noo soo noqdo la doorto nagas fooyar insha Allah dalkana hore loo wado waxaan rabaa qof inuu ka qayb qaato insha Allah tacaala waa laga jilaab maxayna roob la xilka waa laga joojiyay maxaa laga joojiyay walaalo halo hay ma ka qayb qaadanaysaa bay macaan mise bisiyato kana abna voice ku fura ya hay abnit ay soo dhawa bay macaan war degdeg xilka ah okay ya okay niis ma la socota waxa ka qaadis miyaa dhacay ani niis soo dhawa bay macaan soo dhawo dad ma la hadlaysaa mise adaa kula hadli soo dhawo waa dhawa guulaysta walaalaha cawada waa u jeedaa miirka dhaba imaqano waxaan ka caroonaa waxaabaha dhacayo we need inaan hor u socono oon guulaysano wad arkaysaa dadkayga baayo sida gobolada iyo ma garanaysaa hadda wad arkaysaa Colombo ahaa wadaadkii cidlada laga helay gaarigiisii meydkiisii xalay wiil kala maqan intaasoo dad oo kala ba adduunka caalamka dib ku haysto ama doomankii baa dhalinyaro badan ku baaba'day intii yareed aan xarxaaranayna dad gaar baa raba in loo soo adeegsaday qasaan dalku soo dhawa baay macaan bismillaahi rahmaani rahiim dadka shacabka meesha jooga dhamaantiin waa salaamay adna waa ku salaamay ka qaado yes wadaadka intee Allah u naxariisto Allah yarxamo sheekh Xasan Soomaaliyeed meel kasto aan joogna waxaan nahay haadkeed waaye anaga noqonay mana muuqato dadku dhibaatada dal iyo dibad nagu haysta dadka madaxda wadanka ka talinaysa waxaa loo baahan yahay ummadda inay u dhimriyaan qof walba shacabka loo dhibayna waa xil lagula xisaabtamayo ilaahayna uu kula xisaabtamayo shacabka Soomaaliyeedna ay eegayaan in la isqa qabsado madaxdu ay isqa qabsato runaantii wax qurxoon waa wax la xadilay oo maalin walba annaga noo soo weeyanayso of course qof kasta waxaa loo baahan yahay meesha uu talada dalka uu ka hayo inuu ilaahay dartiisa cadaalad uu falo oo cadaaladnimo uga soo baxo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa intaasoo malaayiin ah oo ummad ah oo daafaad dunida ku dhibaataysan
kuwa dalka gudihiisa ku dhibaataysan intuba inay asaga eegayaan oo la wada eegayo nin hadlo oo u hadla afkayga qoyan waxaa ka qurux badan nin u hadla ilaahay dartiisa u hadlaa ka qurux badan dalkana waa wada leenahay muddooyinkii ugu dambeeya dalka waa tegaynay xoolo nagu siinaysa lama arag isxilqaam aan dalka ugu shaqaynayna iyo ilaahay dartiisa oo ilaahay uu markhaati u nooga yahay maalintii yowma qiyaamana la weydiinayo dhibaato kasta ayadoo nagu soo gaarta haddana waxaan aaminsanaha qarannimo ummadda soomaaliyeed in dhib ay nagu soo gaarayso oo inoo taabanayso in noo beer adeego oo aan qaranka laga tegina waa wax muhiim ah madaxdu ilaahay baa sabca samaawaadka ka doorta oo cadaalad qofka ah qofka xilka loo dhiibo waa qof ilaahay uu soo doortay qof kale xilka looma dhiibo marka ilaahay ku aaminay sadana inta loo dhiibo ummad dhan hogaamiya la dhaho in lagu eegaya ha ogaadaan qofka cadaaladda dadka loo dhiibo kula taliyana aakhiro ilaahay meesha uu ka geynayo qof walba waa ogyahay oo islaam ah jannada meesha ugu wanaagsan buu ka degayaa sida diinteennu ay noo sheegtay dhibka iyo shiddada inta la iska dhaafo oo shaydaanka la iska naaro ha la joogo ta kale oo labaad dagaal looma noqdo 30 sano aan isi soo dilayno qurac iyo qansax isku soo dilayno isaakana natiijo kama hayno maamul goboleedka puntland waxaan ka codsanayaa inay xabadda joojiyaan oo dadka dagaalka lagu wada laga joojiyo nin walba nin baa hor istaagay intaas waaba u xirtay hay cabdullahi warsamahiya buu Soomaaliyeed waxaad moodaa ayaga dhan inay wada maqayiin in waxaad moodaa ay xaqa ay fahmi waayeen bor rabra xilka laga qaaday rabaa hay iyo wadwarka marka kii xilka laga qaado waxaad ogaataa xilka qayro ilaahay noo keeno insha Allah dambi iyo dhib buu ku keeni lahaa haddii lagaa qaaday ilaahay dartiisa inta ummadda ugu dhimrisid ugu samartid bari inaa qabatid baa dhici karta adoo dadku ay ku jecel yihiin wixii dadku ay kugu jecel yihiin sameeya ilaahay ha loo dhawaado dalka falantiyeeriyaa loogu shaqeeyaa annaga falantiyeeriyaan ugu shaqaynayna ilaahay markhaatiyu ka yahay xoolo dowladeed leedahay ma anaan cunayn annaga xoolaha ayaga ku bixinayna ilaahay markhaati buu ka yahay uunkiisuna markhaati bay ka yihiin wax kastoo aan ku qabnayna waxaan ku qanacsanahay ama aan ku qanacayna calankeena soomaaliyeed madaxweynaha in lala shaqeeyo oo madaxweynaha laleeyahay maalin walba gurigaa loogu gelayaa meeshaana loogu geynayaa doorashada ku yimid haddii ilaahay u qadarana wuu soo noqonaya haddaan alla u qadarin alafkiisa midka qayroon ummadda soomaaliyeed intay isdejiyaan oo ilaahay laga boqo ilaahay ha loogu dhowaado dhalinyarada ciidanka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay qarannimada ilaaliyaan ayagaa iskale nin derbiyan ka boodayaa yidhi asxaan uma hayo no tuugadii oo dhan aa kusoo gabanayso no asxaan uma hayo maalin la kala firdhanayo ma ahan ciidanka qaranka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ha ogaadaan bad iyo beri ayagaa ku dhammaanaya ninka qaylinaya ilmihiisii meeye ninka qaylinaya xaaskiisii ciyaalkiisii meeye dalka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inaan la baabi'in inaan hooyooyinka lagu tuman in qoryaha lala ordayo la joojiyo in siyaasada la iskula yimaado la fariisto meel la wada fariisto ilaahay baan ka baryayaa inuu ilaahay usha dhexda nooga qabto abi axmed airportkiisa ani adiga waa soo marnay asagoo farinta dagaalka haddana airportkiisa caadi ugu shaqaynaya waataan aad ogeyd oo markhaati aan sawirada aan kusoo gelayna annaga waxaan baabi'inaynaa hantidayada waxaan baabi'inanayaa guryaha iyaga waxaan baabi'inanayana waxa baabi'isku waa dhisiduna waqti bay qaadataa war soomaaliya caqliga iyo dadnimadaa soo degta culummadayadii baa meel lagu sheegin oo wax dilay aan la ogeyn kuwaa beerkiiyo keliyaha lagala baxa kuwaa xabsiyo ku jiray war meel walba annagaa ku oobana ilaahay inta laga boqo dadkaa loo dhimriyo ilaahay untay ka baqa kitaabaha wada marteen kutubada aad marteen alla uga xishooda ilaahay uga xishooda asagaa waxba daa ka saarnayne ummada ilaahay ka baqo ilaahay ha laga boqo waana ku salaamina baaye mahasana baaye macaan welcome thank you baaye macaan soo dhowo muxuu yiri cabdullaahi warsame wala miya okay waxay tiri bintu warqada filada ka soo baxday okay filada ka soo xilqa qaadis miya ii soo sheeg walaalayaal aniga because ama gali karo adinka halkan idin kula jira Soomaaliyeey qof walba wixii loo dhiibo mas'uul baa ka saaran kutuba ku dhaaranaysa hore waxa loo yiri markastaba xilka wax laga ducaysto waa mas'uul baa ku saaran dadka waa inaad sintaa waa inaad hantida ilaalisaa waa inaad daacad u noqotaa waa inaad wadan shisheeyo oo rabo dalka dan kale
dhahayo noo fuli inaad samaynin because hantidan shacaba iskale adiga malihid shacaba iskale waa inaad ilaalisa waa taa ilaalada taabay ka mid tahay wadankii baa tagto waxay yiri oo batrool badan baa haysataan oo disanda in karan u tagto wuxuu ku yiri waxaan miyaha waxaan ha samayn waxaan ha dhacaanay yani kind of dana gaar because wuu og yahay hadduu ku burburiyo tomorrow isdaar asiga dalkiisa nabadu u yahay dib ma ka dhicin annaga wax burburay isil anaga qaxayno dadkaygii shaqo la'aan waxa laga qaxaya ma garanaysaaye meel gaar wax baro dhalintu waxay u soo baxay wax baro meel gaar is leeyihiin because qofku jaamacadda deersano meeshan jaamacadda waa laga shubaya waa celinaysaa laakiin xagga wiilka xagga joogo bajaaju shaqaynaya ma garanaysaa jaamacadda fiigeeru iska dhiibaya madaxweynaha uu dadaal meelo badan buu ma garanaysaa jaamacad free uu sameeyay laakiin mar waxaa la dhahaa 20 dhiib ama jaamacadaha qaarkood lacaga jir ku free week waa different marka wixii baa wali mix isku ah haddii dowladnimada sii dhaqaaqdan waanu gaaraynaa in ilmaha jaamacadaha dhigto garaam la siiyo oo lagu si bood gareeyo hadda laakiin waxaan haysanaa nabad yar oo maasha Allah qurux badan oo noo bidhaantay oo dhalinyarada shaqaysanayaan jaamacadooda dhiganayaan moralkooda dhisanayaan faraxsan dumarkii sidoo kale shaqooyin bay heleen dalkii gabdhaha qaarkood wiilasha ciidan bay wada noqdeen dalkooda bay ku faraxsan yihiin nimcadooda haystaan hawadooda freshka marka taa waxa la rabaa taa yarta inaan laga baabiinin dalku hore u soconayaan wadan mar waxaa jirta airboorradeena diyaaradaha la riixi jiray oo xataa airboor ma lahayn xataa ever buu ahaa cid imaad ma jirin cid xataa noo keeni jirto macaawinaad ma jirin because waa nagala biqi jiray annaga islaaynayn yaa ku aaminaya maantana waxaan haysanaa nolosha quruxda bada Soomaaliyeed marka qof kasta oo Soomaali dalka mas'uul buu ka yahay naf walba ilaahay uumay Soomaali way u baahan tahay Soomaaliyeed wallahi runta idii sheegaya dalkeenu wuu inoo baahan yahay midka duminayo ama midka biidiha soo tuway ee caytamayo ama midka wax xun ugu talinayo ama wadamada sheekan u tagay la soo heshiinayo ka dalka malaha dibku wuxuu ka yahay Soomaali inside kama aha malaha because hadduu Soomaali dhalad yahay ma aragtay ka danqanayo wadanka ma soo baayaceen rag gaar ama ma garanaysaay muuse la soo heshiiyeen ama muuse ka yeeleen because wadankaygana iskala wadankiisa muu u sameeyay markuu aniga ilaahay kan ii sameey kiisanu nabad buu u yahay baraaru u yahay airboorada diyaaradaha uga kacayo wuxuu ku xisaabtamayo inuu hormaro laakiin adigu ku baabiinaya yes waa ka soo yeelaysa we don't know because anaga waan falanahay waxba naga maqan ragaygu waxba ka maqan maskaxdooda waa zero ragayna qaarkood ee siyaasiyiinta damiir baa la rabaa Soomaha danqado ee dhoo adiga wadankaaga adaa iskale madaxweynaha ka tahay waa fadhidaa sidii anigu wadankayga ugu sameeyay waxa qaladka waay what reason wax dhici kara maaha nation dad hadda soo kobcayo oo soo ifbaxay oo 12 sano dawladda soo xoogeysatay 5 sano madaxweynaha joogno sii qabto wax wanaagsan oo aan ciidankeen dhisanayn oo aan ka ilbaxayno inaan ciidan Amison ka dhamaano rabna inaan xuduudaheena badaheena ilaashano u istaagna annaga hor talaabsanay marka aniga adigii dhays dalka waxa ku samee ma waalanahay marka marka caadi ma rag siyaasiyiinta noo fadhiyo waxba ka sii waa loo yeeranaya maskaxa lagu soo shubaa yes u sameeyna kan kale macaaradka banaanku ka qaylinay kan markuu waxa loogu soo shubo intuu ka qaylinay dadku ka cinaya 2 sano ku darsanayay kan buu sameeynayay no tansul ma bijiraba no more war if 2 years lagu dar xataa soo faa'iidada ma is you waxa dhashay waxay dhaleen waxaan dhalnay dhamaantii soo danno ma aha 2 sano dii lagu daro oo hal cud la aado soo sharaf iyo karaamo ma halkay kaleeysa caalamkaas la talaabsanaysa xisbiya samaysanaysa dan waa dhamaatay xisbi wanaagsan samaysana dalku wanaagsan xisbiyaasha fiyu xisbi baa la sameeyay kan wuxuu leeyahay waxan aqoonta wax barashan sameeynay kan wuxuu leeyahay caafimaadka kan wuxuu leeyahay laamida baan dhisaya kan wuxuu leeyahay beeraha baan ma garanaysaa beeraya inta soo dad baan marka shaqo abuuraya kan wuxuu leeyahay ma garanaysaa waxan sameeynay scholarship waxa la rabaa horumar qofku uu ka soo go'o maskaxdan waa inay shaqaysaa tan ilaahay ku siinta ku nooshahay aqligu ilaahay ku shubay ka shaqaysii laakiin wiinaba inaan ka ilbaxno diyaaradan raacaya xoogaa dollar ba akoonka iga buuxo few millions ilmahayga meel wanaagsan ii degan masaakiinta burburkii lagu dhalay wixii ka dambeeyay aan wali bixin dalka joogo ama raba ku dibad joogo ku soo daala raba dalka inay ciyaalka dalkooda keensan ama ay u soo guuraan ala raba in la salkaciyo la barakaciyo asiga turkigu VIP house ku haysta
كان يتجا دبق وما قرنيسا بقول قلعة قار هوتيلا قار ما قرنيسا أبارتمنت لو يجارو المها هالكاس في ودقيهين فيو أبارتمنت لو يبسنا تركيا حمر انت سو جروا لو يبسدي جبوت ميد كلا لو قطي مسبيق ميد لو قطي وغاندا ميد وفيل أبو بوحابة لكن كان ضلك جوجا أما كان ضلك وإيمانايو وطايد قرن مديسة إنه أبرارتو أيا لو دليا وإيمانايا حسوا تلها والله برقد الرجو صار وحكرها ما دعي كرتو وضن كالا صار يا حلكي صار ماذا لا إله إلا الله أنا وعبده رسول شعب ما أركان ومد ما أركان دبكوده وما قرنيسا هرمر ما أركان oo waxay rabaan inay dibdhacaan oo macdanta dahaaran ee taal waxa ka baqayna inaan ka dhimanaba macdanta dahaaran dalka hadda la soo saar baawur electriga oo laakiin noogu jirto macdanta diyaaradaha ma sha Allah wadankeena waa qani wax walba noogu jiro waxa la reer hebel ma jiro kana qaylinaayo xogaa lacag soo dhacay afar in islaamiya afar wiilal soo ijaarana lama hadli karo mid kala soo carray same no haku difaacina because idinka waa wuxuu future-ka aayihiin caruurtiina wuxuu hortaagan yahay waa waxa dhashay waxaan dhal wuxuu hortaagan yahay haddana wuu tagayaa wuu soo noqonaa haddana new program wada waxa la diidayaa horumar waxa la diidaa labada sano lagu darso cod la gaar waa la diido wati laga fadhi waay dad masaakiina la laayay la baabiyay waxa la diidayaa annaga inaan heer gaarno waxa la diidayaa dalka inuu baraaro ciidan annaga leenahay qarnamada inaynu wax noo ilaalisa la diido waxaan rabaa Amazon inuu cusboonaya markuu iyagoo kala yimaado la dhaho kaalay nala jooga dhinacna ka baabiya dhinacna ka shaqeeya ilaa niya controlay hadda ciidankeena hoos yimaadaan yaa ku shaqeynaayo dawladnimo iyo dawlad wanaagsan iyo shacab wanaagsan ciidan wanaagsan ayaa soo sheegay waxay qada arkaan dalku wuu baraaraya ciidamada loogu talgalay Amazon inay badasho waa haysanaa we here ma sha Allah way noo joogaan marka adigow sii socdo biyuudka sarca ku soo guro inta u socotaa ina iska toobad keentaan dalka isku soo sharxay idinka iskana cid idinka malaha ee wanaaga sameeya ee iska tanasul guriga hadaad ka dhisaysaa wadamada shisheeya dalkiina aad leedihiin wadooyinka u dhisa dadka isxilqaan ugu shaqeeya dadka masaakiinta dhaqaale siiya oo guriyo u dhiso oo suuqyo ugu dhax sameeya wallahi adduunka wallahi qabri waxa la gali doonaa hal mitir Soomaali Maxamed waa la dhimanayaa xoolaha hantida qofku uu leeyahay meesha uu ka keenay su'aal ba u taalo su'aal waa lagu weydiinayaa marada yar caaw aan wata shalmada haday xalaal ii tahay oo aan ku dhinto iyo hadan xaraan cunay su'aashiisa ii taalo lacagtan la guranaayo daaraha lagu dhisaayo ee bangiyada laga buuxinayo ee la guranaayo kii siyaasi walba oo wadankaas waxa ka dhaco waa loo haystaa aakhir qiyaamaha dadka masaakiinta shaqada la shaqo abuura dadku wax u qabta dawladda la shaqeeyo dalka waa dalkiina dadka garab istaaga shacabka Soomaaliyeed war dadkan batroolkooda loo qaday daaya ha hormaanina u daaya ha baraaraane u daaya ha dhibina buuqan iyo iska faa'iideysiga warqadahan la soo saaray iska dulmeeraysiga wadankan doorasho inuu tago xildhibaan la soo saaray raba qaarkood way soo baxeen inta dhiman soo baxaan la guuleysto aynu istaagno dawladnimada aynu doonaynaa laakiin la soo diray ee u shaqeey wadamo shisheeye waxa ka maqabar dalkeena inta in lagu matari karo wallahi inta in la eg non because ajarad kala ku xiran record waxa ku jira clip kale clipkaas oo shidanaya uu dhageysanaya kan uu shidana uu dhageysanaa another clip uu dhageysanaa haddana uu tagaa wala soo buuxinaya maxaa marka anaga inuu aaqiba maxaa inoo dana inay dalka inaga iska leh kaligood ma leh shacabka masaakiinta dal iyo dibad baa iska leh maca ilmaha joogay lagu dhalay iyo kuwa ay ku dhasheen kulligooda iska leh maxay ka damacsan yihiin Soomaalinimada qiimaheeda iyo horumarku dalkan noo soo baraaray ifka noo soo baxay wallahi xidiga noo soo ifay Soomaaliyeed wadankeeni ma sha Allah haddaad ijir joogtood u xiisaysa laakiin adigii aniga iyo ka dhashay kulligeen naga raba inaan u istaagno laakiin mid inuu clip soo duubo dhaho ha anaga bixino darbigan ka booday intaan ka dhaceena darbi leeman ku jireen hadda ka booday maxaa yaal waxa ma yaalo waa filadaada waa gali kartaa laakiin adiga wax tarkaagi wax qabadkaagi mee waa adiga shakhsi nool baa tahay soo dalka maleeyid ina qaranka difaacdid inaad wax qabatid inaad dibdhiska samaysid inaad wanaaga xataa one word hal kelmad oo wanaagsan sadaqay ku tahay dalkaaga sadaqay ku tahay
waxa la hebelaha wallahi hebelkii maanta kilibka duubo ka toobad keeno dalkiisii u shaqeeya waxaasoo dhan maanta la agaasimayo la rabo burbur iyo qax iyo dhibaato wax raba dadkaas in la dhaco la laayo la dilo hantidooda la qaato ayu berri meesha shalay hoos nagula celiyo no insha allah tacaala uma noqonayno soomaali intay nafar ka nooshahay dib uma noqonayno waan guulaysanaynaa madaxweynaha waxaan leenahay ha guulaysto madaxda wanaagsan qaranka jecelna ha guulaystaan kuwa qaranka duminayan ilaaha naga saaro soomaaliyay ilaahay wuuna arkaa caawo yaa allah ilaahuna dhaafi kuwa qarankeena duminaya kuwa shisheeyaha u shaqeeya ilaahuna dhaafi kuwa cajaladaha lagu soo guray ee marba mid shidanaya ilaahuna dhaafi ilaahu kuwa daacadda ah oo qiimaha leh oo shacabka ka naxayo oo dalka horumarinayo oo ummadda u taaga ilaahu noo daa guulaan leenahay dowladnimada ha waarto madaxweynaha waxaan leenahay mar kale haddana mar kale insha allah dalka nagis 5 year hadduu qabto wallahi inta dhiman wuu dhamaystiraya soomaaliyay waa madaxweyne qiimo leh ee dalkiisa ummaddiisa u naxariisto ummaddiisa u wanaagsan jecel dowladnimada inshallah ilaahay waxaan ka barayna haddii maalinta calafkiisa ka dhamaado mid ka qayro inuu ilaahay isnoos mid kastoo yimaado mid kasii qayr fiican waxan buu ku taray dalka madaxda shalay joogto waxbay qabteen asna waxaan leenahay mar kale soomaaliha guulaysato soomaaliya wallahi carada waxa ii keenayo waxyaabaha qalbi jabka dadkayga lagu samaynayo dib u dhaca qof kasta dhigta u taagan dhalinyaro waxay leedahay ma la hurdin wallahi wiil aan faraano meesha ku jiraan kanax wuxuu yiri weli maanan jiifanin yani waxaan sugay good news qof walbo qof kasta dalkiisa wuu jecel yahay dal joog dibad joog wadalkeen waxaan u rabnaa inaan tallaabsano inaan guulaysano because hadda ka hor nin maalin waxaa la soo qoray anting waxaan malaynaya american black american dalkeenu ka sheekeynaya wuxuu yiri Soomaaliya waa dal qani ah waa dal wanaagsan laakiin wuxuu yiri waxaan la yaabsanahay 30 sano yani 10 years over waa maanta xabadaha dhacayeen yani dalkan haddii wax ka dhacaan muxuu noqon doonaa oo kale of course waa waxa anaga isweydiino wadankeena muxuu noqon doonaa dadkii gaboobayo you know qalbi jab laakiin ma doonan ilaahay nooma kaso waxaan u garan lahaa anaga dadkii shalay wadankan baabiinayay ee rafaadinay waa laga qaaday ma garanaysaa ay u shaqeynay shisheeyaha habeen waxbaa la qaadaya insha allah wala saasi u dhamaanaysaa marka wixii baan ma garanaysaa iyagiiba ajaanibkaaba ogolba u aamusan laakiin kuwan banaag ka soo shaqeynayo oo shaqada dibadda ka soo habaynayo oo lagu soo shaqeysanayo oo cijada lagu soo rakibayo wad ay kaan maxaa u tari karaa marka waa nin dalkiisii qiyaamayo maxaa u tari kara ma jirto insha allah tacaala waynu guulaysanayna soomaali maxamed guulaysta idin leenahay qarannimadu iyadaa ku leh adna wad leedahay dalku waynu wada leenahay guul ma doonayna dalkeena anaga in la baabiyo ama ma garanaysaa shay loo adeegsado ma rabno ama nin dan gaar uu ka wato uu dalkayga loo soo diro ma doonayno waxaynu doonaynaa qarannimada Soomaaliyeed in loo wada shaqeeyo taydi itaada waynu wada leenahay nin kasto nabad haddaan ka shaqeyno guriga nabad baan u shoogeynaa macinteena qodanaynaa waxaan wadan baahanay qaxay anaga soo dhaweynayno laakiin wiilasheeda 20 jirada baddaas ku dhintaan ku baabaan gabdhii wiilash oo haddana dalkii intii la sameeyay la xarxaare la dhaho waan duminaynaa waan samaynaynaa waqtiga lagu dilo dadka cagaha laga qabto doorashada la dhibaateeyo dadka la murjiyo habeenoo dhan la soo jeedo maxaa loo dhibayaa yaaqi come on cajalad diliid iska diliid garee cajalooyinkan igula soo shubay qarankiina u shaqeeya haddaad diyaar u tihiin madaxtiniinu isoo sharax muwaadiniin baa tihiin laakiin wanaag baynu doonaynaa in la guulaysto insha allah guulaystaan leenahay madaxdayda qiimaha badan dal iyo dibadba joogaan madaxweynahan waxaan leenahay ha guulaysto madaxweyne iska samir wanaag kasto waxa waaye wuu qaraar yahay markii aad shaqaynaysid oo aad halgan dheer aad galaysid madaxweyne waqti adag baad maraysaa waqti kan kasii adag waa la soo maray in yar baa noo dhiman samir jamiil wadu samartay shacabkaaga waa u tanasushay waan ku jecelnahay halgankii dheer aa soo martay wax qabad dalkaaga guulaystaan ku leenahay mar kalena soo noqo madaxda wanaagsan dalka habeen iyo maalin u dhafarto u taagan ha guulaystaan anahay xildhibaanada wasiirada dhammaantood guul iyo gobonimo dalku waa la wada leeyahay wallahi dalku adinka dadka qurbaha joogo haddaad dalki tagtaan madaxdu ma hurdo Soomaaliyeed ma jiiftaan wallahi way soo taagan yihiin waa inaa ku ammaantaan ugu mahadcelisaan dad caanaya markaan arko shoogaa noqda because I know hard timekay ku shaqeeyaan adag because wadanka in loo dhafra waqtigii dhafarkaa lagu jiraa dalkaygu
waana guulaysanayna dad baa laga ilaalinaya jirooyin lagu soo guray iyagana waxaan leenahay isdejiya qarnimadii ninka iskale u tanasulo dalkiina dalka waa dalkaaga waa jeclaanaa siyaasadda inaad maaragtay aad kasii yeelato han weyn laakiin idinkii baa ma garanaysaa dhexda isaga jaraya oo dana gaara wato oo dana dad shisheeyaa waa ka xumay marka maanta haddii dalkiina iyo dadkiina ma garanaysaa u tanasushaan wax kasta wada helaynaa waa wada guulaysan lahayn laakiin anyway waxaan idin leeyahay Soomaaliya kasii joogto guul iyo gobonimo qarannimadana ha guulaysato dowladnimadana ha waarto madaxweynahana waxaan leenahay mar kale guulaysan ku leenahay soo noqo madaxda wanaagsan waxaan leenahay qarannimada la soo shaqeysa dalkana ha guulaystaan de guulaysta idin leenahay Soomaaliya ha guulaysato qof kasta oo doonay barnaamij inuu ka qayb qaatana insha Allah waa soo qabanaynaa waxaan inta mar kasta ugu soo celinay wax kale ma aha because waxaan rabaa wadankaygu wadamada caalamka inuu la qabsado wadankaygu waxaan doonayaa erabarada caalamka inuu noqdo waxaan doonayaa lacagihii dalka inaynu helno waxaynu doonaynaa inaan horumarno waxaynu doonaynaa macdanteena inaan qodano waxaynu doonaynaa inaan ka baxno saboolka waxaynu doonaynaa inaan horumarno Soomaaliyeed in mar kasto cagaha isaga dhigno we don't want it dhagaheena kusoo dhacdo ma doonayno laakiin dib badan dheef baa ka dambayso waa loo samrayaa Soomaaliya guulaystaan leenahay meel kasta joogtaan guul iyo gobonimo waa idinka sii tagaya waqtiga idin wacnad walaalaha qiimaha badan aamin ma sha Allah walaalada halkaan idinka arkaya comment xagga ma ka arkaynin kulligiina waxaan idin leenahay guulaysta qarannimadu ha waarto Soomaaliya ha guulaysato inaga leh wallahi billahi ay xawtaakii halgamayaasha iyagoo gurigooda joogan ay cadow ka hortagi jireen ayay u taagnaayeen marka qarankan loo soo dhintay la leeyahay am xorriyad baan rabnaa oo ma doonayna in gumaysi ayagoo dhahayo u dhinteen ayay god ugu galeen maantana anagoo xornimo haysano oo u taagan ayaa rabtaa in cajalada isku soo guro oo dalkii dadka qalbi jabisaan waxa dhici kartaa ma Soomaali maxamed naga daaya dhibaatada haddaad markii horeba ha imaanin haddaad xilkan ku faracsaneen iyo haddaa qiyaamada macsan tahay kudaba ku dhaaranaysaan kadib dadka dib u celinaysaan cagaha isaga dhagaya waa dhowr iyo 10 bilood baa maanta ra'iisul wasaaraha loo dhiibay doorashada lagu wareejiyay ilaa maantadan saasa u liicliicanayna kan bedel kan keen wasiir bedel kan keen todobadan daadi kan soo celi maxaa inaga qaldan annaga maxaa ina haleelay mee shaqada la isku diray in lagu dhawaaqo lagu dhaqaajiyo Soomaaliya Soomaaliya dan gaar ah laga leeyahay Soomaaliya dadkaygu wallahi dan gaar ah naga leeyahay qof kasto loo dhibin oo la soo isticmaala in dadkayga dib u dhaco inay doorasho ka dhicin inuu madaxweynaha soo bixin ay dad ayaga doonay soo saartaan yes clearly because way ka baqayaan because madaxweynaha wax kasto qarannimada ayuu diidan yahay in lagu xadgudbo qarannimadii ciidanka buu dhisayaa badihii buu ilaalinayaa xuduuduhu ilaalinayaa erabaradu u taagan yahay wuxuu rabaa inuu shacabka Soomaaliyeed heer gaarsiiyo wuxuu rabaa qarannimadii shalay Soomaalinimada aan ahayn inaynu gaarno wuxuu rabaa diyaaradihii inuu keeno lacagihii aynu lahayn Soomaali guul adduunka caalamka aan la tallaabsano ayuu u taagan yahay waxa ay idin garab istaago waxa idin lagu taageero waxa idin la shaqeeyo ma aha in la dhibo qofka sabni buu leeyahay baasaboorkiisu uu dhigay si James oo imaan su'aalo tira badan dhaxdu u xirtay wuxuu istaago ummadan Soomaaliya inta soo sano habeen wax la qabanaaye bal inta qaybtiisa inuu dhameystiro oo qarannada inta ka dhiman uu dhameystiro shacabka Soomaaliyeed uu u talaabsado uu u taagay madaxweynaha uu u taagay habeen iyo maalin ma sha Allah ilaah baa inoo keenay Soomaaliya guul waynu guulaysanayna inta dhimanna de waa xaqiiqo Soomaali been ma hata waxa runta idin sheego waxa indhahayga soo saaray habeen iyo maalin waa sugu mid madaxweynaha uu taagan yahay inta hurda waa in yar wallahi billah madaxda la shaqeysa sidoo kale dhalinyarada la shaqeysa waa sidoo kale ma hurdaan because dalka waqtigii la hurdaa lagu ma jiro waxa loo taagan yahay horumar ayale dadna waxay rabaan dhafarkii iyo maaragtay shaqadii adkeyd in dib la isugu celiyo wax shaqeynaa taa ma aha Soomaaliyeed wax shaqeynaa ma aha shaqadu markaad dhafartid waa ku guulaysanaysaa laakiin la isku ciyaaro cajalooyin la isku soo shubo oo kan bedel iyo kan hoo waay maxaa qaldan
maxaa inaga qaldan ma annaga waxaan u shaqaynaa dad kale oo waddamadooda nabad u yahay ayaa annaga nagu shaqaysanaya annagoo maanta lacagna aan haysanin oo lacagteena hawo tahay diyaarad ma haysan magaceenu ku qoran oo ku qoran Somali Airlines malaha Soomaaliya isxisaabi kan qurbaha jooga ka dalka joogaba qarnimada way dhantaalan tahay ciidankaadii baad dhisanaysaa amisoona kaa baxayso maxaa ina helay macaaradka kan xataa qarnimada mas'uul uu ka yahay diyaar mas'uul buu ka yahay oo ka soo shaqeeyay qaarkoodna kamaysa soo shaqeynin way dhaxda uga soo dhaceen maxaa kuu diida laftigaa inaa u istaagtid oo qof kasto war waxaan xun naga daaya joojiye dheh u istaaga wanaaga laakiin laga celceliye maaha in la iska celceliye maaha ani waxaan qoostay habeenkii ciidamada gorgor ها nimanka macardan kamid ulaahay ها gorgoraa timid anagaa nugula layna warseel war maxaa war suuqaadka iyo beentaad u wareegaysa war gorgor xuduudahaada lagu ilaalinaya cadowga masaakiinta dadka laynaya ee xuduudaha dadka ku laynaya indhahana soo saarnay ee gabdhaha qabsanaya ee wiilashii jirdilaya ee kan xataa u socdo iskuulka dhahaya hebel waa magac u samaynaya indhahana soo saarnay kuwaasay lisaga celinaya xuduudaha loo dhigtay shacabkaaga lagu ilaalinaya intaa dhilayd guul waa ku faraxsanahay dalkaygu ciidan yeeshay ayaa waxaa soo dhigaysay negative twitteradiina iyo facebookyadiina waa idii arkayna markaasaa leedahay muwaadi Soomaaliyan ahay anaa isoo sharxaya beri waxaan rabaa inaan shacabka maamulo maxaa ku maamulay ciidankoodii aad u diidaysaay war anaga jaajuus ma rabno yuu isku keen soo sharxin nin jaajuusa we don't want it jaajuus dana kala wato muu baahan madaxweyne inuu noqdo waxaynu rabnaa madaxweyne wanaagsan qaranka iyo ummadda Soomaali u naxayo qof walbo aqlina wuu garan karaa Soomaaliya qofka markuu isoo sharxayo waa qof beeshkiisa clear yahay nadiif dalka iyo dadka aan waxba ka soo gelin oo ku xad gudmay qarannimada shacabka Soomaali bal qof ka waran ka hadlaayo ciidan Soomaali waa ciidanku asi Allah ma xarta in amso ku daba taagnaadaan ku daba joogaan sida oo isku soo sharxday adaha geesaha iga soco no ana kuma jirno gumaysi dal xor baynu nahay dalkeena waa xor amse waqti go'an waqtigeedana wuu dhabaaday fi maanta kadib way tagaysaa insha Allah taala qofka doonaya inuu soo sharxan qarnimada mas'uul baa ka saaran Soomaaliland waxaan leeyahay indhihiina fura Soomaali maxamed indhiin weydin fura si fura rag musharaxiinta soo socdo waa inay qaranka Soomaaliyeed aysan dambi ka gelin waa in qarannimada ay ka danqadaan waa in ciidankeena ay ku faanaan waa in jaajuusiin ay ahayn waa in wadamo shay u shaqeynaan waa in dalkooda dadkooda ay u taagnaadaan Soomaali guul baan leenahay annaga laakiin waxaan rabnaa inuu soo sharxo oo ku guuleysto madaxweynaheena naga 5 year 5 sano soo socoto dalkan wax u qabto inta dhiman uu noo dhameystiro baan ku faraxsanahay ilaahu samad way fantay aamiinta noo insha Allah taala qof kasta Soomaaliya because waxaan u jecelnahay inuu noo dhameystiro insha Allah taala inta noo dhiman madaxdeena horna waxaan leenahay adeerayaal fadhiisto waa idin jecelnahay wadankan u dhibriya oo qarannimada la shaqeeya dalka iyo dadkan lacag malaha dalku dhaqaale badan malaha dalku shaqo abuur badan u baahan yahay diyaarada ma haysano oo magaceena ku qoran shilinka lacagteena lacag badan bay nooga xiran tahay samayskeeda inaan ciidankeena annaga dalka noo ilaaliyo inaan annaga iswada taageerno inaan shaqo wada abuurano in dalka loo wada shaqeeyo aan loo shaqeynin cajalooyin wadamo kale idinku soo shubteen guulaysta habeenka waqtigeedii u wacnaado waa idin wada jecelahay walaalayaal nabadaan jecelahay horumarkaan jecelahay dalkaygu waxaan jecelahay inaan guulaysano waxaan jecelahay dhibkan iyo sijiidkan uu naga dhamaado waxaan jecelahay dowladnimada inaan ku faano waxaan jecelahay caalamka adduunka sida maanta wadankaygu uu yahay ikasii fiican inuu noqdo caalamka la talaabsana idin leenahay dhalintii doonta ku dhimatana waxaan leenahay ilaahay jannada Allah ka waraabiyo shiiqi ku dhintay Colombo ahaa masaajidkan iimaankan waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo xaqiisa Allah soo bidhaamiyo yarka yaroo maqan ilaahay nabad ha ku soo celiyo Soomaaliya dhibaatadaas aan haysato dadkii baa saa u maqan dadkii baa saa loo qaadanaya waa nal ugaarsanaya ilaahay ya rab dalkeena noo nimcee inta wadamada qurbahana nagu amaanso ya Allah ya rab umadaadana ilaahu dalkaygana dhalinta Soomaali u bidhaami oo shaqo abuur badan oo ma garanaysaa wardaaraha ka dhisaysaa meelaha kale iska daayo iyo dalka shaqo ku abuuro oo shacabku istaaga oo dawladda garab istaaga oo dadka masaakiinta shaqo abuur bay rabaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dukaan walbaba waxa waa inuu shaqaaleysiiyaa student oo kale part time in experience work la sameeyo dhalinyarada jaamacadaha ka baxo shaqooyinka dawladda la geeyo ama la jeegareeyo
qof walbo yani safety maadaama wadanku iska jiro yara qarax hadda laakiin waa ka fiicannahay in dhalinta loo istaago maasha allah hadda way soo sida hore aad ay uga soo fiican tahay marka qof walba Soomaali mas'uul baa ka saaran dalka iyo dadka Soomaali meel joogtana guuleystaan leenahay waxaan ka hadlaynaa waa wanaagiina dhammaan inaan heer gaarno Soomaaliyeed wada guuleysano ciriirigii dhibka laga baxo doorashada noo hagaagto إن شاء الله مدحوينه إنه صبحوا إن شاء الله تعالى مركلان لينها مدحوين محمد عبد الله فرماجو سوماليه قوليست هبين كيدين وعناضو قوليست إن الله قيمة بدن